السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داوضيال ميل والبؤ جوجتان ب qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaalo aad u xarar oo u dhaxeeya maleeshiyaadka axmarada iyo ciidanka TPLF ayaa ka socda meel aan aad uga fogeyn magaalada Gondar ee caasimadda labaad ee gobolka axmarada ayadoo maamulka axmaradu malaayiin kumanaan ciidamo maleeshiyaad ama dhalinyaro yaryar oo hubka loo qabiyay si ay ula dagaalamaan xoogga TPLF gaariyaha shacabka ama rakaabka gaariyaha noocyadooda kala duwan lagu sii daabulay jiidda hore ana dagaalka lagu gurayo ayadoo caalamku aad uga qaliya hubka Itoobiya ama hubka dawladda ee gacanta sida dhibta yar uga baxaya asagoo gacanta u galaya dhalinyaro badan oo la sheegay inay dagaalka ka qayb qaadanayaan dawladda federaalkana garab siinayaan hase yeeshee caalamka ayaa aad uga qaliya hubkan shacabka sida xawliga gacantooda ku galaya sidoo kale TPLF ayaa la sheegay in ay ku sii qulqulayso ama isku sii ballaarinayso gobolka Oromada ayadoo u fududeeyeen xooga oola inay TPLF gobolka Oromada tababar ciidan ka furto ayadoo halkaasi dhalinyarada Oromada ee daacadda u jamhadda oola tababar ciidan halkaasi lagu siinayo qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida maalinimada shalay ay xoogga TPLF waxay soo bandhigeen kumanaan ciidan oo ay ku sheegeen ilaa waqtiga dagaalka dawladda federaalka la galeen ama uu dagaalku bilowday waqooyiga Itoobiya uu ka bilowday ilaa maanta oo dagaalku wali u socdo ciidamo ay ku soo bandhigeen oo lagu sheegay kumanaan ciidan inay yihiin haaseeshee shacabka Itoobiya ayaa su'aal iska weydiiyay waxa soo askara inay TPLF gacanta ku dhigto ama sida TPLF ay ciidamadaasi ula dhaqanto ama sida ay ugu suurta gashay TPLF ciidamadaasi inay quudiso kuna sugnaadeen magaalada Mekele oo maalinkii shalay ay duqeymihii ugu cusbaa ka dhaceen dawladda federaalkuna ay aad ula socoto dhaqdhaqaaqyada magaaladaasi sidoo kale gobolka Canfarta waxa laga soo sheegay dagaal xooggan oo u dhaxeeya qoomiyadda Canfarta ciidamo ka wada tirsan ayagoo ciidamada la sheegay inay qayb u jarjadhay xagga TPLF ay howlgallo cusub meel ka fuliyeen deegaanada gobolka Canfarta hase maleeshiyaadka dawladda la socda ayaa dagaal culus halkaasi kula galay oo la sheegay dhimasho dhaawac badan inay halkaasi ka dhasheen qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha 11 2021 haddayna u guda galno wararkeeni oo faahfaahsan dagaalo xaraar oo u dhaxeeya qoomiyadda axmarada oo maleeshiyaadka noocyadooda kala duwan hubka gacanta u gelisay iyo dhalinyaro si mutadawacnimada soo abaabulay iyo xoogga TPLF ka dagaalamaya galbeedka magaalada Gondar ayaa dagaal culus halkaasi uu ku dhaxmaraya maalinimadii labaad xoogga TPLF aad u hubaysan ayaa halka waxa la sheegay inay ku xasuuqeen dad shacab oo aad u badan hase yeeshee TPLF waxay ku sheegtay inay ahaayeen dad hubaysan oo qoyso hubayeen maamulka axmaradu halkaana uu dagaal culus ku dhaxmaray TPLF ayaa waxa la sheegay inay halkaasi ku qaqabatay boqolaal dhalinyaro ah oo sheegtay inay hubaysnaayeen dagaal ay kala hor yimaadeen xoogga TPLF oo deegaano ballaaran oo galbeedka magaalada Gondar isku ballaarinay halkaana howlgal ka waday iyadoo ay axmaradu tahay qoomiyadda labaad ee dagaalku sida xun u saameeyay markii laga soo tago Tigrayga ayaa la sheegayaa inay axmaradu tahay qoomiyadda koobaad ee dagaalka ugu culus la galay xoogga TPLF markii laga soo tago ciidanka militariga ee dalka Itoobiya qoomiyadda axmarada ayaa dagaalkan si xun u saameeyay ayadoo dhulka ay TPLF qabsatay la sheegay halkaasi inay ka geysatay xasuuq aad u baahan shacabkii ku sugnaa gobolkaasna ay intiisa badan iskaga barakaceen ayagoo u kala cararay gobolada kale ee dalka Itoobiya iyo dalka Suudaan axmarada ayaa ku guda jirta dagaalkii ugu cuslaa ama abaabulkii ugu dambeeyay oo ay sheegeen guul iyo guul darraba inay la galayaan xoogga TPLF sidoo kale axmarada ayaa tuhmaysa inay xoogga TPLF si gaar ah u beegsanayaan dadka ka soo jeeda qoomiyadda axmarada hadda sidoo kale axmarada ayaa waxay aaminsan tahay TPLF suurta gasho in ay dawladda Dr. Abiy Ahmed saaxada siyaasadda ka saarto in ay beegsani doonto ama si gaar ah ula dhaqmi doonto axmarada ayaa tuhunkaasi ku qaaday waqtigii ay dawladda federaalka Itoobiya November 4 sanadkii hore ay dagaalka xooggan ku qaaday waqooyiga dalka Itoobiya waa dawladda federaalka Itoobiya ayaa la sheegay axmaradu inay maleeshiyaadkooda noocyadooda kala duwan sida liyu booliska iyo maleeshiyaadka kale deegaanadu inay sii raaceen ciidamada militariga ay bilalqa xooggan iyo kubsi ba'an ka geysteen waqooyiga Itoobiya
axmaarada ayaa waxay ku tala jirtaa inay dowladda federaalka ka difaacdo xooga TPLF xooga TPLFna loola dagaalamo sida ay ula dagaalamayaan dowladda federaalka inay qoomiyadda axmaaraduna u dagaalanto si mutadawacnimo oo ka duwan qoomiyadaha kale hase yeeshee xooga TPLF ayaa la sheegay inay aad u hubaysan yihiin qoomiyadda axmaaraduna ayna u barbardhigi jirin ayna u barbardhigi karin ayagoo ciidanka militariga dalka Itoobiya gacanta soo mariyay inay axmaara maleeshiyada ama hubka loo dhigay inay u barbardhigi karaan iyo in kale ayaa hoosta laga xariiqay xog ururinta ay sheegayso in axmaaradu marrada ku dhicin xooga TPLF ka baajisa dagaalkan qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah xooga TPLF ayaa la soo sheegaya inay isku sii ballaarinayaan gobolka Oromada ayagoo u fududeeyeen xooga mucaaradka oola inay xooga TPLF gudaha u galaan gobolka Oromada ayagoo ku sheegaya inay xooga oola caawinayaan ciidamada u tababarayaan ay xagga khibradda iyo dagaalkana ay ka caawinayaan xooga TPLF ayaa waxaa la sheegay in gobolada Oromada waa dhulka ay oola ka talisay inay aad saameyn ballaaran ugu leeyihiin ayagoo la sheegay inay halkaas ciidamo dhalinyaro aad u fara badan ku ururinayaan si ay jamhadda oola uga garab dagaalamaan ama dagaalka gulubka ee xooga mucaaradka isbahaysiga ay diyaarinayaan magaalada Addis Ababa inay ku qaadi doonaan ay sheegeen waa sida ay shaaciyeen maalinimadii shalay ahayd dhalinyaro ka qayb qaadato noocyadooda kala duwan xooga TPLF ayaa ilaa waqtigii ay soo galeen magaalada Desi ee caasimadda gobolka Wollo waxaa la sheegay inay xooga oola ee Oromiya ay halkaasi kulamo waaweyn uga socdeen ayna u suurta gashay inay gudaha Oromiya galaan ayagoo halkaasi hawlo gaara ka fulinaya ama tababarra ciidan iyo wacyigelinta dhalinyarada ku soo biiraysa ciidamada xooga mucaaradka inay halkaasi ugu sameynayaan tareyn kala duwan sidoo kale shacabka Itoobiya ayaa waxa uu isweydiiyay sida ay ugu suurta gashay xooga TPLF ama TPLF inay dhalinyarada ay askarayaan ama ay gobolka Oromada ay ka dhaadhiciyaan inay dowladda federaalka si wada jir ah oo la dagaalamaan sidoo kale xooga Tigray ayaa maalinimadii shalay waxay magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrayga ku soo bandhigeen askar aad u fara badan ay ku sheegeen ilaa waqtigii dagaalku bilowday inay gacanta ku dhigeen ayagoo sheegay askartaasi inay ku mudaharaadeen dowladda Dr. Abiy Ahmed si miidiyaha loo mariyo kuwan inay yihiin kuman ku ciidanka militariga dalka Itoobiya ka tirsan dowladda federaalkana qaabka ay wadaan la dhacsanayn ciidamadan ayaa waxay ku hadleen inay dowladda Dr. Abiy Ahmed ay tahay argagixiso ayna ula dhaqantay ciidanka militariga dalka Itoobiya si ka baxsan anshaxa ciidamada ama xeerka dalka Itoobiya ciidanka askartan ayaa waxay ku dhawaaqayeen inay la dagaalami doonaan dowladda Dr. Abiy Ahmed ayagoo ku hadaqayay inay hadhacdooda dowladda Dr. Abiy Ahmed wacadna ku maray inay la dagaalami doonaan Dr. Abiy Ahmed sidoo kale wali dagaal culus ayaa ka sii soconaya gobolka Canfarta ayagoo la sheegay xooga TPLF inay mar labaad dib u soo rogaal celiyeen sidoo kale maleeshiyadka soo wada jira Canfarta ayaa la sheegay inay dagaal culus halkaas ku dhaxmaray ayadoo Canfarta ay la kulmayso caqabadii ugu cuslaa oo dagaalada xooggan ka socda gobolkooda gobolka Canfarta ayaa waxa uu yahay gobolka labaad ee soo raacay xooga TPLF dagaalka xooggan ku soo qaadeen markii laga tago axmaarada hase yeeshee dagaalka Canfarta ka socda ayaa la soo sheegay inuu dagaal aad u qaraar yahay ayadoo lagu dagaalamayo dhul istiraatiiji ah oo dowladda federaalku halkaasi hubka noocyadiisa kala duwan ku sii daabulaysa xooga TPLFna ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan wadadan weyn isku xidha waa Djibouti iyo Itoobiya tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.